marka ugu horeysa booliisku wuxuu xil saaran yahay ilaalinta shacabka Puntland nabadgelyadiisa cid kasta oo aan isleenahay nabadgelyada wax u dhimaysaa ama kuwii u dhashay ha ahaadeen ama kuwa Soomaalida kale u dhashay meelaha ka yimid ha ahaadeen waa isoo kaayimid laakiin su'aashan weydiinay waxa weeyaan 2005 ilaa hadda meesha la qarxiyo ama qofka madaxa laga toogto suspectiga lagu soo qabtaa wuxuu ka yimid gobolada Koonfureed 80% waxaan idin weydiinayaa waxa weeyaan xildhibaanada iyo wasiirada ka soo jeeda gobolada Koonfureed ee arinta ku dacwoonaya maxaa ku inta u badiyay gobolada Koonfureed dadka ka yimid kharaamka noocaas isweydiiya gobolada Bay iyo Bakool dadka ka yimid inay kharaamka sal u noqdaan oo qofkii la soo qabta ama fal dambiyeedka lagu qabta oo ayaga noqdo taas waxay keentay in sharcigu bartilmaameed gaar ah uma lahayn la yiraahdo kharaamku see u dhacay iyo halkee ka dhacay iyo yaa galay marka percentage-ka majority-ga dadka dambiyadaas lagu qabanayo oo ka imanaya ama gacantooda ha lagu qabto ayagoo falki gacanta kula jira ama baaritaanku ha geeyay waxay ka yimaadeen gobolada Koonfureed marka sababta anaga bartilmaameedka naga dhigay qofka dambiga galana bartilmaameedka Koonfur ka dhigay yaan weydiinayaa xildhibaanada inoo cadeeyaan aniga waxaan cadeynayaa oo xaqiijinayaa anoo ku hadlaya magaca ciidanka booliiska ahna taliye-xigeenka booliiska cid gaar bartilmaameed gaar ah noole oo aan raadinayna oo aan doonaynaa ma jirto boqolkiiba 85 dadkii aan ku qabanay fal dambiyeedkii ka dhacay nimanka shabaabka soo duulay ciidanka aan ku qabanay waxay ahaayeen gobolada Koonfureed cadeyntoodina waanu haynaa gobolada Bay iyo Bakool markaan leeyahay Koonfur markaan leeyahay laba gobol baan u jeedaa way jiraan gobollo kale ay ka yimaadeen jubbada hoose ka mid qaarkood ku jiraan marka idinku ma iska warqabtaan marka su'aashana weydiinaysaan Puntland ma ku xaqirtay ku xadgudubto dadka yagi ma iska warqabtaan gudihiina waxa ka socda ha saasaan ka rabnaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh